Guddida joogtada ee Golaha Wakiilada Somaliland ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay. Kadib markii uu dhamaaday kulankaasi waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha guddida joogtada ee Golaha Wakiilada iyo xubno ku hadlayay afka maamulayaasha dugsiyada aan dawliga ahayn waxaana hadaladoodii ka mid ahaa. Halkan hore waxaan ula kulanay wasiirka wasaaradda waxbarashada oo aan ka wareysanay arrimo la xiriira wasaaraddiisa iyo hawlaha ay qabato. waxa kale oo isna taagnay oo wax ka weydiinay wasiirka xogaa khilaaf oo isaga iyo dugsiyada private-ka dhaxyimi taasaan isna wax ka weydiinay maalin baan halkan saf kula qaadanay. maantana waxaan la joogay madaxdii dugsiyada private-ka baan la joogay iyagana waxaan wax ka weydiinay arrimaha ay wasaaradda waxbarashadu ka hadlayso ama kaga cabanayso iyaguna waxay ka cabanayaan ishuuga isku hayaan kuwaas iyaguna maanta runtii tafaasiil badan iyo macluumaad badan bay ka bixiyeen. waxaan noo aragnaa anagu baarlamaanaan in arrinta dhulka la dhigo oo siday shaqadu tahay iyo sida nidaamku yahay looga wada hadlo. wasiirkana waa u soo jeedinaynaa madaxda dugsiyada private-kana waa u soo jeedinaynaa inaanay arrintaas cunsurad iyo isqabsi noqon. wadana cashuur bixiyayaal baanu nahay xaqiiqadeena haddii markaa waxa weeye la baaro waa loo tegi karaa. waxaanu aaminsanahay cashuurtu inay tahay waxa dalku ku dhisan yahay waxa ammaanku ku taagan yahay haba yaraatee suuragal ma aha inaan anagu cashuur diidno iyadoo oo waxbarashadu ay in la kabo xaq u leedahay oo dawladuhu ay kabaan waxbarashaduna aanay ahayn wax ganacsi ama markaa waxa weeye business laga samayn karo oo runtii concept-ka noocaas anagu aanan aaminsanayn. haddana wixii dalka dan u ah ee qaranku isla qaato marnaba anagu dad ka soo horjeeda ma nihin. waxaanu leenahay cadaalad ha lagu shaqeeyo ardaydu waa isku mid ah scholarship-ka ha la wada siiyo inaanay annaga iyo madaxdayadii inaanu miidiyaha iyo microphone-nada iskala hadalnaa inaanay arrin wanaagsan ahayn aad baanu arrintaa uga xunnahay. laakiinse duruuf baa keentay iyo dan iminkana wasaaraddu waa wasaaraddeedii dawladdu waa dawladdeedii madaxdu waa madaxdayadii qaranku wuxuu u igmaday cid gaaraba ugu igman waxbarashada oo waa wasaaradda waxbarashada. ayaan hooda Somaliland Space Channel Hargeysa.